waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadocday deeq biyood uu soo gaarsiiyey boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow waxaana maanta biyaha la gaarsiiyey tuulada Dhoomacatuug ee hoos timaada degmada Garadocday galbeedka gobolka Sanaag. boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ayaa soo wakiishay qaar ka mid ah dhalinyarada ku firfircoon degmada Garadocday Cabdisaal Jaamac Xasan iyo Siciid Aadan Siciid. tuulada Dhoomacatuug waa tuulo leh dhul daaqsimeed ballaaran laguna soo hayaamo xilliyada abaarta. tuuladanu iyagoo aanay lahayn wax ceel ah oo ay ka cabaan xoolaha iyo dadka halkay biyuhu u jiraan xilliyada abaarta 195 kilomitir oo badankeedu raf yahay. waxaana hadda ku soo hayaamay dad aad u tiro badan oo ka soo hayaamay Garowe, Itoobiya, Soomaaliya iyo gobolka Sool. dadkan oo sheegay inay tahay deeqdii ugu horeysay ee soo gaadha intii ay joogeen ama ay ka soo hayaameen dalkoodii. isku soo wada duuboo dadweynaha kala duwan ee deeqda biyaha la gaarsiiyey ayaa boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow uga mahad celiyey iskarabtaaga. maanta waxaan ku sugannahay magaalada Dhoomacatuug, magaaladaasoo markaa ka mid ah deegaamada degmada Garadocday. ilaa shalayto iyo ilaa maanta waxaanu safarro u kuurgelida aanu ugu jirnay magaalooyinka ku teedsan degmada, magaalooyinkaasoo run ahaantii abaaro baahsan ay ka jiraan isla markaana ay soo food saareen biyo la'aan aad u baahsan. ilaa shalay waxaanu soo marnay ilaa maanta deegaamo fara badan oo ay ka mid yihiin Fadhigaab, Wargombi, la helay Sincaro, Faraguul, Shiisha, Tuurarka, Garadocday iyo imika ugu dambeyntii aanu joogno Dhoomacatuug. run ahaantii magaalooyinka aanu tirinay magaalooyinna biyaanu ka soo bixinay kuwo wali deeqdii biyood aysan gaadhin oo way jiraan sida la helay iyo Sincaro iyo Faraguul oo kale. magaalooyinkan aanu ku sugannahay Dhoomacatuug run ahaantii waxaanu kala kulannay inay jirto baahi weyn oo biyood. sidoo kale waxaanu kula kulannay dadkii gobta ahaa ee soo guurtada ahaa ee ka soo guuray gobolka Sool guud ahaanba. dadkaasoo eheliyadii iyo dadkii wadankan lahaa dhulkoodiina markaa ay abaara ka keeneen isla markaana ay yimaadeen deegaanay markaa bideen inuu markaa baad ay u soo doontaan. dadkaa waxaa la kulmay biyo la'aan baahsan run ahaantii halkan aanu kula kulannay. maanta biyahana aanu bixinayno bulshada reer Dhoomacatuug waxaanu wakiil uga nahay oo noo soo wakiishay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow. boqorku mar walba waa boqor la dareena shacabkiisa waliba si gaara waliba wuxuu noogu ballamiyaa oo uu doonayaa inuu taakuladiisu ay gaadho dadka soo guurtada ah meelaha ay joogaan. run ahaantii maanta waanu la kulannay soo guurtadii oo joogta biyana markaa u baahan. imika waxaanu reer Dhoomacatuug u sidnaa waa 2 booyadood oo biyaa. run ahaantii baahida halkan aanu ku aragnay ma aha 2 booyadood waxay ka fayn karayso, laakiin insha Allah waxaanu ugu baaqaynaa cid walba oo danaynaysa shacabkan inay dadkan banka degan inay biyo la soo waxaan insha Allah ugu ducaynaynaa leenahay jazaakumullahu khayran jazaa. ilaahay ka jazaaisiyo deeqda degdega ah ee dadkaaga aad la soo gaadhayso. annaguna insha Allah waxaanu ballan ku qaadaynaa meel walba oo aad deeq u soo fidiso inaanu gaadhsiino annagoo si tabarucaad ugu shaqaynayna. anigoo ka hadlaya magaca gudoomiyaha Dhoomacatuug waxaanu mahadnaq ballaaran u fulinaynaa boqor Cismaan aw Maxamuud oo noo keenay 2 booyadood oo biyo oo dadka soo guursada ee soo guuray meelo fog ka soo guuray Soolo kaliya ma aha dadku meesha ka soo guuray wax ka soo guuray Garowe qaar baa ka yimi, Togdheer iyo Itoobiya qaar baa ka yimi. dadku way fara badan yihiin. dadkaasna abaaro baan baa ku dhacay, xoolaha ay wataana xoolo nafle ma aha. marka wax gurmada oo 2 booyadood ee boqor Cismaan uu soo dhiibay ka horeeyo horta dadkaas ma yaran. waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha maxalliga dawladda in dadka gurmada la soo gaaro. annagu waxaan nahay meesha soo guurtada ugu badan
ay ka soo gasho waxa la wixii aan barkada yaryar bay magaaladu leedahay barkadaha yaryar wixii ku jiray waa la laas dadka halka toban raad baahay marka boqorkana ilaahay ka jisaysiyo biyaha uu soo gudbiyay dadkiisa walba wax tar wanaagsan waa lagu haysay boqorka waa dalkiisii halkan maaragtay waxaan nolol ku keenay maanta anagoo ah odayaashii Dhoobacantuug deeq biyaha uu soo bixiyay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaaka ilaahay ha ka abaalsiiyo meeshaad ka soo bixisayna ilaahay wax qaroona kuugu bedelo halkan waxaan noogu yimi hadaanu nahay Dhoobacantuug odaya geediyo iyo hayaan culays fara badan baa nasaaran culays ka fara badanna laba booyadood iyo 3 iyo 4 waxay wax ka qaban karaan maaha marka waxaanu maaragtay ka codsanaynaa boqorka iyo maaragtay samafalaha boqorka boqor Cismaan aw Buurmadow iyo maaragtay deeq bixiyaasha hay'adaha dawliga dhammaan inay dadka maaragtay soo caawiyaan boqor Cismaan Buurmadow ayaan mahad u celinaynaa anagoo waxaan ka midnahay dadka soo guuray ee ka yimid gobolka Sool dadka tiradiisa lagama sheekayn karo ilaahay baa mahad leh waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadka tolkaya ah ee aan u nimi ee sida wacan ee sharafta leh noo soo dhaweeyay ee hadii allaba ku roon yahay gacan qabtay ee meesha daaqala noo tilmaamay ee hadii alla ku leeyahay abaalkooda gudi kareen kuwana waa mahadsan yihiin ilaahay iyagana khayr ha siiyo fi aakhiraba marka labaad dadku waa fara badan yahay ummadan lama tirin karo geel iyo reer kulli anu geel inta leego wali iyo xoolo inta leego meel ku guuray ma arag ninkayga inta leegi waa iska amar ilaahay oo xayatay waa iska imtixaano qolada loo yimina waa lagu imtixaamaya oo de waa imtixaan baa la marinaya anagana de kulli qolada soo guurtay waa iska imtixaan waxaan leenahay boqorka horta waa mahadsan yahay hadda waxa halka teedsan waa biyihii geel jiraha waa xawayaan tanaagti loo dhaaminayay awla deegaanka dhaamin jiray oo dhibaato ku qabay deegaanku male baraago biyo galaan booyada lagu soo dhaansadaa intaasaan la martinaa dhulkuna waa dhul biyihiisu kala fog yihiin tahay dawladda lafteedu de wadanka iyo dadka waa dadka xukuntay in xil ka saarayaan aan ugu qabaa boqorka qudh xil ka saaray dadka soo guuray kuwana waxaan leeyahay hadii alla ku reeyay madaxweynaha iyo wixii ka hooseeyaba maanta waxa gacantiina lagu jiraa oo la eegayaa wixii dadka loo dhigay beelata wixii dadka loo dhigay waxaanu joognaa tuulada Dhoobacantuug leeyahay oo ay hoos tagta magaalada Garadag anagu dadka wadanka Soomaaliya baa isugu timi soo guurtaa meel walba way ka timi xalay qaar baa waxay ilaahay xaqaanu soo maraa Itoobiya geel ka keenay oo waliba reer dharkayna warda idin lababa jooga anna idin dhulka ma kala taqaanina meel soo martaan anigu garan maayo magacyada dhulkaan u sheegayaan la dadka soo weydiiyay halkanina barwaaqana waa loogu yimi oo daaq baa loogu yimi biyo la'aan iyo diraac bilowgeed oo jiilaala oo qorraxdu kulushahay oo ban ay tahay oo hadla ah oo biyuhu durugsan yihiin weeyaan hadda wata la shubayo biyihii oo noo soo diray boqor Cismaan waxaan ku leeyahay abti anoo dadka aan soo gurtaba anigu isku wadin oo waliba reer iyo guuriya waa ku salaamaya halkan waan ka salaamaya boqolkiiba boqol waxaan kaloo ku sheegaya abti adigu waxaan badee ka eegnay inaad tad gaarigaaga soo kaxaysato geelasha dhex timaade biyahana abti waa ka gudoonay waana ku salaamaya wadanka waxa loogu yimi waji furan gamca furan waa la soo dhaweeyay waxa weeye Soomaali baa isugu timi way kulushahay way bacad badan tahay elashu waa buuq jirikaan yar oo 10 la aho geel loo geeynayo oo gaari sido oo laga soo dhaaminayo ceelaan wadanka lahayn waxba weyna tari waayeen halkani male baraaga male kuwa biyo macaan galaana male kuwa biyo qadar galaana male waa oomane ceela malo hadii ceelashu way ka durugsan yihiin geela u jalqalayay dadku ma jalqlayn karo biyahana waa ka gudoon